السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت waxaan halkan wareysi kaga qaadanaa nin Soomaaliyeed oo la dhaho Professor Ahmed Chad halkan wuxuu ku cunayaa baasto Soomaali markaa waxaan weydiin doonaa baastada waxa uu ka faa'iideeyo waxtarka ay leedahay iyo waxa ay tahay baastada qudheedu mudane ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة Soomaaliyeed oo salaam iyo meel kasta joogaan. Maanta waxaan halkan korsaday oo ku cunayaa cunto la yiraahdo baasto. Waa cunto Soomaalida u taqaan baasto laakiin spaghetti waa lagu dhahaa Ingiriiska. Cuntadan waa cunto wax ay faa'iido u leedahay ma jiro. Kaliya hablaha Soomaaliyeed ayaa ku qasba iyadoo soo ugu dhigayna cuntaan si degdeg ugu bislaato waqti badan qaadan dadaal badan iyo energy badan ay soo bixiyaan. Marka cuntadan waa cunto lagu talagalay in dadka lagu baabi'iyo. ragga Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan caloosha sababtoo ah baasta daraadeed. Marka dumarka Soomaaliyeed waxay ku dardaarmayaan inay baasta ragga ay ka daayaan. Okay, mudane waxaan ku weydiinayaa baastadu maxay ka samaysan tahay horta asal ahaan maxaa laga sameeyay? Baasta waxa laga sameeyay burka caadiga ah oo naqaano oo canjeelo ka samaysan ayaa lagu sameeyay tamaasho waa burka caadiga. Okay, mudane wax energy uu leeyahay ma jiro waa burka soo khafifiyay double soo kariyay anaga ma loo keenay. Okay, mudane adoo og inaysan waxaan wax faa'iido lahayn maxaa kugu khasbay inaad haddana cuntid? أنا أحب أصبر. أنت كل أنا نيجي ماشي متقنع متعلم ماشي يوغندا نيجي شغلنا يوغندا نعطوه أنا نقول لي اسمنا برا لكن عطوه أني نبغى كي ما شغل باسي يبريس ماشي أنا جاي هنا تنتا سنو كلفتنا باسي إسكعون سكست بانو قادة إسكعون باسي. Okay, marka ragga Soomaaliyeed maxaa kula talin lahayd dadka baastada cunaa? waxaa kula talin lahaa inay si degdeg u joojiyaan waa inay qaataan ay baastada ka mamnuucaan. baasto cunto ma baasto waa wax dadka lagu dhinto waa caloosha weynaad waa energy kama helisid waxaa noqonaysaa fair week waxaa noqonaysaa qof aan tabar lahayn energy aan lahayn protein aan helin jirkiisu mise balance isu qaadan because of this pasta it's not good. Okay, dadka inta badan ka hadla nafaqada cuntooyinka waxay sheegaan baastada inay cayil keento maxaa ka jira arrinkaas? Yes, qofka baastada cuna jirkiisu balance ma aha wuu kala koraya waxaa laga yaabaa in calooshu halka soo weynaato iyadoo karfahaaga iyo dhabarkaaga iyo booyadaadu ay caata yihiin weli sababta ah baastadana balance ma aha jirkaaga qayb ka mid ayaa koraysa qayb ka midana waa daciifaysaa. waxaa laga yaabaa in madaxu ku weynaadaba madaxu iska weynaado sababta baasta cuni jidhe marka waxaa la yaabaa cuntada jirka si dhammaystiran u wada korinaysa sida cuntada baalkale digirta masagada galleyda qamadida cuntooyinkaas fiican ayaa wax kastoo laga sameeyay burka sida jabaatiga canjeelada baastada waxaas cunto ma aha waa khasaaro socota. mudane su'aashii ugu dambeysay sidaan ognahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto dal iyo dibadba cuntadeeda dheeliga ah waa baasto bariis iyo canjeelo marka arrinka maxaa ka oran lahayd micnaheedu ma waxa weeye ma yaqaaniin waxtarka ay leedahay iska cunaan kaliya yes ha aku sheegay aniga professor soo bartay aniga cilmiga ku shaqaale waxa leeyahay dadka cuna baasto canjeelo iyo jabaati ama bur waa dadka nolosha ka khasaaray jirkoodana caafimaadka kuma fikirayaan just waxay arkaan baastada la cunayo markaas ay ku noqonayaan baastada ma yaqaanaan baastada adduunka Mareykanka iyo Yurub waxa loo yaqaanaa qashi west weeyaan west of the bala soo waa la daadiyaa waa lama cuno waa ka mamnuuc wadamada caalamka canjeelada sidoo kale waa ka mamnuuc laakiin Soomaalida waa dad iska reebaatiya wax ma yaqaanaan. professor kan maanta wuxuu sheegay wuxuu bartay waxa la yaabaa baastada iyo canjeelada asbuuci mar cuna haddii kale iska wadaayaba haddii la sideen kara asbuuci mar cuna cuntooyinka nafaqada la cuna oo dhakhtarku idin sheegayo sida cuntada baalkale oo dhan cuna ka waasanina waqtiga ay qaadanaysa xilliga la karinayo iska suga laakiin baastada oo 5 daqiiqo bislaanaysa focus ka saarinina bariiska iska daaya cuntooyinka nafaqada leh oo jirkiina si balance u wada korayo oo jir qurux badan ay yeelanaysa caafimaadkina mustaqbalka u roon cuna. mudane waxaan ku weydiinayaa dhalinyaro badan oo iminka soo koraysa waxay aaminsan tahay baastada iyo bariiska iyo canjeeladu inay yihiin cuntooyinka hidaha dhaqanka traditional foodka Somali people arrinka maxaa ka leedahay waxaa kale waa roonka idea cuntooyinka Soomaalida oo la yaqaan Soomaalida cuna jiray waxa weeyaan cambuula waxa la yiraahdo shoolad waxa weeyaan wax la yiraahdo mataqaanaa cunto dhaqameed jiray waxaan okay maadaama ay erayadu adag yihiin ma nafsir kartaa shoolad iyo waxa ka wad
ها وكودا شورد شورد waxa weeyaan amadi la shiiday la tumay la shiiday la kariyay subag lagu daray qaata lagu dhexdhigay waa shoolad wax ka macaan inta ku jiro qofka cunana wax noqonaya qof weys ah yiri laakiin tabar leh energy leh protein leh calcium ku xidhan u dhimaystiran yihiin oo cambuuladana waxa weeyaan waa masako sidoo kale baalka laga saarayaa waa la karinayaa waxa qaadanaysaa 2 hours 40 minutes ba qaadanaysaa 2 saac farad daqiiqo ugu bislaato معناها 2 hours 40 minutes كاس waxba ma aha laakiin hadaa hal mar cuntid taa saddex waqti kaaj kuma qabanayso sababta waxda ninku qadiyo cunto dhamaystiran jirkaaguna wuxuu noqonayaa si dhamaystiran inuu wada koro ay sameeyna ku weynaa meelna ku yaraan ma garad dadka qaar waxa ka kaaban yihiin sababta baasay dheer kradinayaan baasay cunayaan dheer bay kradinayaan waxa waa khalad ma ahan waxa weeyaan way ragaas ma taqaan ragaas maxaa weeye way qofkii hoos u kora meesha kor u kori lahaa hoos si aadaya ma garad ayo marka cunto haduu cun lahaa fiican